soo dhawaada shabakada Sayxtiij oo ugu baratinayay idin soo baahiso cilmiga teknoolajiyada waxaanu casharkan kaga hadlaynaa hadii la haymo sida Windows-ka loo ogaado farshaxanka u dambeeyay ee marka aad isticmaalaysid su'aalaha inta badan ay soo weydiiyeen dadka ku xiran shabakada Sayxtiij ay kamid ahayd su'aashan oo u soo noqotay badan waxaan chance-kan u helay casharkan inaan uga faa'iideysano haddaba Windows-ka sidaan ognahay qofku markuu dul tago PC-ga wuxuu ka tagayaa right click kadibna wuxuu dooranayaa properties wuxuu arkayaa astaamaha uu leeyahay markaas Windows-ka markaas ku jira si aynu marka u ogaano last version-ka marka aynu isticmaalnay Windows-ka waxaynu tagaynaa ama isla qabanaa Windows+R kadibna halka waxaan ku qoraynaa win.exe kadibna waxaan leeyahay enter waxay soo boodiyay pop-up-kan warqadan ah waxaynu arkaynaa version-ka aynu markaa isticmaalayno last version Windows 10 maanta la isticmaalayo oo ah version-ka 18.03 bayligiisuna OS-kiisu ku dhisan yahay tirada intaas meesha ku qoran marka waa last version-ka marka aynu isticmaalayno Windows-ka haddii aad u baahan tahay marka inaad ogaatid Windows-kaaga version-ku yahay si fudud ayaad halkan uga eegaysaa adigoo aadan isdibin taas oo kaa saacidaysa in aad Windows-kaaga ay ku jiraan ama aad ka heshid waxyaalo fara badan oo markaa lagu soo kordhiyay adigoo ogaanaya in mataqaanaa si fudud aad u heshid haddaba course-ka waxaan ku hadli doonaa sida loo update gareeyo Windows-ka haddii version-ka u dambeeya marka uu ku soo bixi waayay sida aad uga dhigi lahayd mid update ah aad baad mahadsantihiin